سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalka Ibnu Abubakar. Maanta iyo muuqaal cusub waxaan idin soo gudbinayaa sheeko dhab ah ay dhex martay 3 wiil oo saaxiibo ah. Sheekadaani waxay u dhacaysaa sida tan. Waxaa jiray 3 wiil oo saaxiibo ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayay go'aansadeen in uu qof kasta oo iyaga ka mid ah uu hal arin joogteeyo 10 sano ee soo socota oo ay natiijadu arkaan mar dambe. Kii koowaad baa yiri anigu waxaan joogteynayaa hal xabo oo doolsho ah oo aan cunayo maalin kasta. Kii labaad baa yiri anigu waxaan joogteynayaa 15 ab maalin kasta inaan aalamiinteeyo si aan u arko natiijada 10 sano ee soo socota. Kii saddexaad baa yiri anigu se waxaan joogteynayaa 10 daqiiqo ayaan wax akhrisanayaa maalin kasta. wuxuu waqtiga socdaba waxaa soo wareegatay 10 sane waxaana la gaaray waqtigii natiijada. Kii koowaad baa yiri anigu se waxaa ii soo kordhay hilib yacni waan cayilay. Kii labaad baa yiri anigu se waxaa ii soo kordhay jir ahaan waa aan dhismay iyo maskax ahaan intaba. Kii saddexaad baa yiri anigu se waxaa ii soo kordhay waxaan noqday qoraaweyn ah waxaana noqday saynis yahan. bal adiguna arin dooro oo joogtay sanadka soo socda kadibna fiiri natiijadaada.